degmada ceegaag oo ka mid ah deegaanada ay ragaadisay abaartii adkeyd ee soo martay dalka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa si fiican uga horay raxmaadka eebe roobkaasi oo ahaa mid ay ku diirsadeen dadweynaha ku nool degmada ceegaag iyo nawaaxigeeda roobkaas ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah beeralayda ku nool degmada ceegaag waxaan saaka u guurgalaysaan wax uga ogaado xaaladda beerahaasi qaar ka mid ah beeraha degmada ceegaag waana kuwan iyagoo iga warramaya amurahaas maanta waxaan ku sugannahay beerta cabdixakiin xaaji cali waxaanu doonaynaa inaanu ka wareysano mid ka mid ah beeralayda ku sugan deegaankani dhibaatooyinka uu kala kulmay xilli roobaadka iyo caqabadaha ka soo wajaha roobka iyo faa'iidada ka soo gooda beertani ku soo dhawaal telefishinka caalamiga ee Soomaaliya halkan waa beerta ninkaas sidaas warbixinteedu ku siiyay imika in badan roobku waa naga maqnaa hadeerta markuu yimidna wixii abuur ahaa iyo wixii dalag ahaa waa tabaaleeyay wixii aanu beernay hadeerta uu wada aasi badankooda wax quman oo ka soo baxayna ma jiraan sidoo kale cayayaanka yaryara ee dhalan jiray xilli roobaadka markay tahay wuu dhashay isaguna daawadii iyo wixii hawlgal ahaa isagaan qaabeeshinkeedii iyo hawsheedii aan la gelin baa isagana uu naga soo gaaray marka aad iyo aad waxaan ugu baahanahay wixii ama daawo ama agabka beerta lagaga shaqeeyo oo kale wixii noo qaban karay sida wasaaradaha kale laga soo gaarsiiyo deegaankan waa yahay deegaan xagga beeraha aad ugu wanaagsan oo ay beertana ka soo gaan dalagyada noocyadeeda kala duwan maxaad ka codsanaysaa wasaaradaha iyo hay'adaha ka shaqeeya mashruucyada beeraha wasaaradaha waxaan ka codsanaynaa waxa laaliyo waxa dunyaale wixii ama daawo ama qalabka beeraha lagaga shaqeeyo oo ay kamid yihiin wixii gacanta lagaga adeegi jiray xagga biyaha waanu ka ladanahay beerta dhawaana waa la biyo geliyay wixii imika raxmaad bay hoos joogtaa laakiin sida ma garanaysaa siirkoo kale sida haddii aaba qadarkeeda leeyahay wixii ma garanaysaa daawooyinka buufinta oo kale qalabka yar lagaga shaqeeyo oo kale waxyaalahaas oo kale way waxyaalahan imika aanu jilcsanahay ee wax qabadkoodina taagan yahay maadaama siirkii beerta hore uu daadkii qaaday si aan wada ogsoonahay ama noo sheegtay ma jira siir cusub oo hadda aad beertay wuu jiraa laakiin ma badna waa lagu yariyaa aad iyo aad loogu yariyaa meel imkan wax dhow imkan ugu soo socona ma garan karnaa anagu ma hayno imka kulli dalagyada ka soo go'a beertan ee deegaanku manafacaadsado bal wax nooga sheeg waxaa kamid ah haluurka waxaa kamid ah digirta waxaa kamid ah saytuunka waxaa kamid ah liinta waxaa kamid ah qaraha intaas waa ka soo go'da ilaa barbarooniga qajiga waxaas oo dhan waa ka soo go'an beertan intee in leeg bay hadda shaqeynaysaa ama ay jirtay ilaa adigu ilaa imika muddo gaadhe ilaa 5 sanadood ama 6 sanadood meelahaas weeyi inta imika iyada ku ismanay markii hore beertu waxay iska ahayd biyo gelintuna xitaa intii imika waxay ahayd intii jilaalkan una ahayd bay ahayd intii hore waxay iska ahayd wax gaadiid iyo waxa dad gacantii iyo waxa lagu tabcayay oo rafaad iyo hawl badan loo soo maray waxa arkaysan waxaan ku beernay hawl iyo dib iyo karax iyo wax gaari saaran iyo qof uu la jiidayo iyo tuubo la jiidayo cudurana waa caawi waa tahay maadaama xilliyadii abaarta aad kala kulanteen dhibaatooyin badan oo dalagii oo biyihii cidhidhidii ku noqday deegaanka mar haddii maanta ay roobkii raxmaadka eebana inoo dahay solar energy oo inoo shaqeeyo oo loo soo daayay beerta biyo joogta 24 saac maxaad ka rajaynaysaan beerta inay ka soo go'aan hadda waxaan ka rajaynayaa isbedel badan inuu yimaado waxaan ka rajaynayaa inaad nacfigii markii hore lagu qabay nacfi ka badan inuu ka yimaado waxaan ka rajaynayaa ina reer ceegaag iyo meelaha diriska la meelaha ahayn oo kala badan inay nacfigeedu tago isku soo wada duuba raxmaadkan ayaa inta loo ogyahay aan geysan wax khasaaro ah marka laga yimaado saameynta uu ku yeeshay beeralayda degmadaasi walibaan axmed ciise cawil libaan qaran Soomaali News TV ceegaag